سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة بدن رمضان الكريم وساحبكين عبد الله محمد عبد CMC يجن الكعرض عاشق ومركل يموقال كعبر قاد الشمذن هدي آد ليدا هاي لقوح مقلا يا قلبي واحترمه آد كوقوس قادن دونتو هذا بدقيسو قصدا أو كعمل فل وحفظنا كلبح وحنكو بالله يا قصدا markaan aqriyay qormadan wallaahi waan ka xishooday rabbigay inaan maanta kadib ku caasiyo wixii horena allaha iga dambi dhaafo adiguna waan ogahay marka aad dhageysato waad ka xishoon doontaa rabbiga oo aad muddo badani ku caasin jirtay waliba si indhala'aan ah xadiis quduus ah waxa uu alle ku yiri ina aadamow waxaan hoy kaaga dhigay caloosha hooyada adigoo daciif ah waxaan kugu daboolay xuub dahaar ah si aadan uga baxsan ilmo galeenka hooyada wajigaaga waxaan u jeediyey xagga dhabarka dambe si aysan dhibaato kugu geysan urta ka dhalatay raashinka ay hooyada cuntay waxaan kuu sameeyey makaanu santaasi meel aad isku kala bixiso marka aad uurjiifka ahayd oo ah dhanka midig iyo dhanka bidix dhanka midig waxaad ku jiifan jirtay beerka hooyada markaad ku daasho waxaad u beddelan jirtay dhanka bidix oo ah beer yaraha hooyada waxaan ku baray sida aad ugu istaagi lahayd uguna fadhiisan lahayd gudaha ilmo galeenka hooyada miyuu jiraa allah aan aniga ahayn oo sidaa wax yeeli karo ayuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala maya rabbiyow waad ku mahadsan tahay midaas iyo waxyaabo badan oo nimcooyin ah oo aadna siisay muddadii markii ay dhammaatay oo aan u waxyooday malag oo aan u wakiishay in uu ku afuufo uurjiifka waqtigoodii noolaynta u bilaabatay in uu ruuxda kugu afuufo kadib ruuxda lagugu afuufay markaad ka soo baxday meeshii mugdiga ahayd ee aad ku jirtay oo aan kuu sahlay waddadii ciriiriga ahayd adigoo madaxa soo hormarsatay kadib aan caano kuu geliyey labada naasood ee hooyada caanahaasi oo xilliga qabowga jiro aad u diiran marka uu kulaylka jirana qabow labadaada waalid aan qulubtooda jacayl kuu geliyey labadaada waalid ma dhargaan ilaa aad ka dharagto ma seexdaan ilaa aad ka seexato markaad xoogowday ama aad xoogaysatay oo aad qaangaartay waxaad igu abaalgudday in aad igu caasiso markaad keligaa tahayna igama aadan xishoon sidaasi ay tahay haddii aad ibarido waan ku ajiibayaa haddaad wax i weydiiso waan ku siinayaa haddaad ii toobad keento waan kaa toobad aqbali lahaa sidoo kale waalidiinta ha loo baarifalo واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeenii yaraa ee ah muuqaaladii aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan ee ka hadlaysay allah iyo nimcooyinka faraha badan ee uuna siiyey iyo sida aan ugu caasinay walaalka muslimka ahow khayrka ha bakhaylin ee la wadaag asxaabtaada sidoo kale like saar muuqaalka maxaa yeelay dhiirigelin ayay ii tahay waxayna igu dhiirigelinaysaa inaan muuqaalada noocan oo kale soo badiya sidoo kale haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe haddii aad ka mid tahay asxaabteedana hore wixii talo iyo tusaale ahna commentiga noogu reeb waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka muuqaaladeeda inta ka horeysa waa saaxiibkiin cabdullaahi maxamed cabdi CMC iyo channelka curad caashiq oo idin leh dembigeenna iyo dembiga waalidiinteenna waa allaha dhaafo kuwii ilaahay aana ku caasinin dembigooda hore iyo kuwooda dambana la dhaafo allaha naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu